digreeto waxaa la soo saaray madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu ku shaaciyay liiska 6 xubnood oo bedeli doona xubnihii hore ee guddiga doorashooyinka oo muddo xileedkooda dhamaaday kuwaas oo ay soo kala xuleen madaxweynaha golaha guurtida xisbiga wixid waxaanu madaxweynuhu soo xulay 3 xubnood oo kala ah Maxamed Jaamac Maxamed Maxamuud Jaamac Waciis iyo Marwo Kaltuun Sheekh Xasan Cabdi golaha guurtida ayaa iyaguna soo xulay 2 xubnood oo kala ah Siciid Cali Muuse iyo Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame halka xisbiga wixidna uu dib u soo celiyay xubintii hore ugu jirtay guddiga doorashooyinka Cabdifataax Ibrahim Xasan balse waxa uu madaxweynuhu isla xalay dib u soo celiyay xubintii xisbiga wadani Dr Maxamed Cismaan Fadal kana dalbaday xisbiga wadani inay dib u soo xulaan xubin kale hase yeeshee xisbiga wadani ayaan ilaa hadda wax wara ka soo saarin dhinacooda balse afayeenka xisbiga wadani Ibrahim Mahdi Buuba oo dhawaan Kalsan TV wax ka weydiiyay warar xilligaasi soo baxay oo sheegayay in madaxweynuhu dib u soo celinayo xubintooda ay arintaasi sharci darro ku tilmaamay Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa